بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على رسوله الأمين حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا ليال داوديال مركز الدنيا كيف سجنتهين وحان نقول سلام يا سلامة إسلام كقيمة بدن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني أخواتي، وحن جعلها إنا نسحسوسنو من باب قوله تعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. إلهي وحوري إسحسوسية حسوسينتو وحي أنفع سادتك مؤمنين مرة وحن إسحسوسين إن هذه الأيام وحن بلا بينا وإنو بلا ميسا السلاسة أيامه الله يقاني طبنك عشو ذو الحجة. أيامها علماء الإسلام كو وحي الأهدين وأيامها إلهي كتاب كيس قرآن كقدارتي سورة الفجر مركو إلهي سبحانه والفجر وليال عشر. تمنك هبين أغفل لبضن تمنك أيامود أغفل لبضن وإلهي كقدارتي أيام لغت المهامي أيامها تمنك بشد الحجة. waxaan jeclahay markaa inaan isxasuusino walaalayaal arrimo saddexa. horta ilaahay subxaanahu wa tacaala wax walba isaga abuuray, wuxuu abuurayna wuxuu ka doortaa waxa uu doono, iraadadiisa ku xidhan tahay iyo xikmadiisa. muxuu yidhi ilaahay subxaanahu: yakhluqu maa yashaa'u wa yakhtaar. ilaahay wuxuu doono intuu abuuro ayuu wixii uu abuuray wuxuu doono ka dhex doortaa wuxuu rabo subxaanahu wa tacaala. waxaad ogtihiin ilaahay malaa'igta uu abuuray tiro ma leh, wamaa yaclamu junuuda rabbika ilaa hu. isaga uunbaa yaqaana inta ay tiro leegyihiin ciidamada ilaahay iyo askartiisa subxaanah. laakiin waxaad ogtihiin inuu ilaahay 10 ka doortay magacdooda la yaqaano: jibraa'iil, miika'iil, israafiil, cisraa'iil, munkar, nakiir, raqiib, catiid, maalig, ridwaan. kuwaas waxaa loo doortay shaqooyin malaa'igta kale ayna qabanin. waxaa ugu fadli badan oo quraanka ku sheegana waa jibriil iyo miika'iil. ilaahay ambiyadu abuuray wuxuu ka doortay subxaanahu wa ta'ala bini aadanku abuuray wuxuu ilaahay ka doortay subxaanahu wa ta'ala dowr uu u bixiyay waa ambiyo. ambiyadii wuxuu ka doortay rusushii wuxuu ka doortay ulul azmi. saas buu ilaahay wuxuu doono u doortaa subxaanahu. dhul buu abuuray ilaahay, dhulku abuuray maka iyo madiina iyo qudus buu ka doortay subxaanahu wa tacaala. ilaahay jalla wacalaa samaawaadka uu abuuray baytulmacmuurku ka doortay subxaanahu wa tacaala. idan waxaan halkan ku arkaynaa arrin cajiiba. waxa weeye ayaamahan waa ayaamo mukhtaara oo la doortay weeye. zamanka waa la doortay, azamaanu mukhtaar. makaankana waa la doortay, meesha camalku uu ka dhacayo oo maka iyo xaramka ilaahayna subxaanahu wa tacaala waa la doortay, iyaduna waa mukhtaar weeye. idan arrintaa maxaa lagu doortay baan oranay? iraado ilaahay baa doonay, rabitaankiisana raalli baan ka nahay. xikmadna waa lagu doortay oo la iskama doonana ilaahay waxa uu wax kasiba ma sameeyeen, wax cilmi ku salaysan iyo xikmad iyo khibrad buu sameeyaa. marka ficilkiisuna uu xikmadaysan yahay, shariicadiisu waa xikmadaysan tahay, uunka wuxuu abuurayana uu xikmadaysan yahay subxaanahu wa tacaala. marka arrinta koobaadi waa arrintaa weeye. ayaamahan 10 ah waa ayaamo la doortay weeye, ilaahay baa ku dhaartay subxaanahu wa tacaala. arrinta labaad ee aanu ka hadlayno waxa weeye, culimmadu waxay ka hadlaan adduunka ayaamuhu ilaahay abuuray maxaa ugu fadli badan. ma 10 cisho ee ramadaan ugu dambeeya ugu fadli badan, mise 10 cisho ee bisha dulxijjo ugu horeeya iminka bilaabayno iyo ugu fadli badan? hadal aad u fara badan bay culimmadu arrimaha ka yidhaahdaan, laakiin cinda tahqiiq waxay ku dhamaatay sida ibn al-qayyim iyo bacdu ahli ilmi ay ku tageen, waxay ku dhamaatay sidan soo socota. haddii habeenka la eego waxa ugu fadli badan 10 cisho ee ramadaan ugu dambaysa, lianna habeennimada ayaa la eegaya halka layaali maaratay 10 cisho ee ugu dambaysa nabigu camaladu qabanayay waqti kale uu qabtay ma jirin. marka ayaamaha la eega dharaaraha la eegana ilaan maalintu waxay ka kooban tahay habeen iyo dharaare. marka dharaar la eegana waxa ugu fadli badan 10 cisho ee bisha dulxijja. taasi waxa weeye waa 10 Ramadaan iyo 10 Dhulxijja.
ayaan ahaan maxaa adduunka ugu fadli badan culimadu aad bay isku weydiiyeen waxa ugu fadli badan bay dhahdaan maalinta ciida ee loo yaqaano yawm nahri maalinta tobanaad ee bisha dhulxijja culimada qaarna waxay dhahdaan waxa ugu fadli badan yawm arafa maalinta arafa la taagan yahay labadaba ahadiis fara badan baa ku soo aroortay oo sheegaysa inna min afdali ayyaamikum ayyaamaha in ugu fadli badan inay tahay maalinta yawm nahriga iyo inay xadiis kala tahay maalinta ciidul adha mubaarak waxaan jeedaa yawm arafa idan ikhwani fillah labada cishana khilaafa ka jiray iyaka ayaa ugu fadli badan laakiin marka aad ku noqnoqotid waxaad ogaanaysaa inay tahay maalinta ugu fadli badani maalinta ciida insha Allah ta'ala marka ilaahi subhanahu wa ta'ala maalimihi adduunka ugu fadli badnaa ayaa ina soo waafaqay ina amal la qabtana ay waajib tahay in la dadaalana ay tahay arin diitu inoogu yeedhay muxuu nabigu alayhi salatu wasalaam mal amalu salihu amal wanaagsan oo la qabto oo ilaahay agtiisa looga kal gacayl badan yahay ma jirto ayaamaha tobanka ayaamahan tobanka ay noo bilaabay amal wanaagsan in la qabto mar looga kal gacayl badan yahay ayaamahan qeyrkood ma jirto ayaamahan baa looga kal gacayl badan yahay ilaahay agtiisa subhanahu wa ta'ala culimadu aayadaas xadiiska wisdul taageer waanu imanana laakiin su'aasha cajiibkii waxa weeye qaaluu waxay lahdeen nabiga waxay ku dhaxeen walal jihad ya rasuul allah hatta jihadka ilaahay dartii loo galayo miye ka fadli badan tahay amalka saalixa ee la qabanayo tobankan nabigu wuxuu dhahaa illa nin umman laga fadli badnayn kharaja baxay oo diinta u baxay oo jihad galay naftiisa iyo maalkiisa ba ilaahay siiyay waxna kala soo noqon ka umman la gaarin buuri labadiiba soo waayay maal wuxuu lahaana soo burburiyay naftiisina soo burburiyo ilaahay u dilay shahiid noqday ninka lama gaaray uu rasuulku sallallahu alayhi wa sallam marka ikhwani fillah amal la qabto amal ka wanaagsan oo ayaamaha la qabto ma jirto buu nabigu alayhi salatu wa salaam su'aashu hadaba waxa weeyaan walaalayaal amalka inaan qabanaa muxuu yahay tobankan cisho ee soo socota nabiga inuu xadiday sallallahu alayhi wa sallam nabigu wuxuu ku xadiday al-a'mal as-salihah laba arimood baa ku jirta oo inaan isla taagno u baahan koow walaalayaal nabigu ma oran al-amal as-salih hadith rawada qaar al-amal as-salih bay tirada amal marka shaqa in la qabto hawl in la qabto ina maaratay arin lagu kaco waa koow arinta sifada ilaa maxay as-salihah wanaagsan shaqo wanaagsan amal wanaagsan a'maal wanaagsan shaqooyin wanaagsan iyo shaqo wanaagsan culimadu su'aal bay isweydiiyeen amalka saalixi muxuu yahay amalka saalixi waa in laga helo ikhwani fillah laba shardi waa in laga helo shardiga koowaad waxa weeye an yakuna inuu ahaado amalka saalixi mid ilaahay dartii loo qabanayo amal wal oo la qabto oo ilaahay dartii loo qaban amal wanaagsan ma aha wuxuu doonay ha noqdo dacwad ha noqdo cibaado ha noqdo akhlaaq ha noqdo waxa doonay qabo hadaad alla ula jeedin ilaahay kaama aqbalayo subhanahu wa ta'ala ilaahay wuxuu aqbalaa amalka mukhlisan ilaahay loola jeedo subhanahu wa ta'ala wama umiru illa liya'budu allaha mukhlisina lahu ad-din ina ilaahay u baraxtiraan cibaadada alla ula jeedaan oo qura ayaa la amray marka amalka saalixi waxa looga rabaa inuu ku yeesho in alla loola jeedo laba waa maxay in nabiga lagu daydo alayhi salatu wa salam an yakuna muwafiqan li sunnati rasulillah inuu waafaqo sunnah rasuulka amal adu iska samaysatay amal saalixa maaha cibaado adu aad alifatay cibaado saalixa maaha idan waxa weeye cibaadadu wa an takuna bi muqtada sunnah inay sunnada waafaqdo labada haday hesho amal kasti oo labada waafaqsan tobankan cisho wax ka wanaagsan ma jiro amalkaasi marka wuxuu noqon karaa salaad wuxuu noqon karaa soon wuxuu noqon karaa zako wuxuu noqon karaa hajj wuxuu noqon karaa sadaqad wuxuu noqon karaa birul waalidayn waalid loo soo falo wuxuu noqon karaa quraan la akhriyo wuxuu noqon karaa dhikriga oo la badiyo wuxuu noqon karaa riximka oo la xiriiriyo wuxuu noqon karaa wanaag oo la amro wuxuu noqon karaa xumaanta oo la reebo wuxuu noqon karaa muslimiinta oo laga qayb gala khayrka iyo wanaaga wuxuu noqon karaa salaada jamaacada oo la tago wuxuu noqon karaa masaajida oo laga laabalaamo
wuxuu noqon karaa camalka khayrkii muslimiinta oo markay ka soo horbaxaan iyo bini aadamka loo qoslo oo loo ilka cadeeyo wuxuu noqon karaa camalkaasi dadka oo la gargaaro oo loo gurmado wuxuu noqon karaa iqaasatul malhuuf qofka baahan oo la garab joogsado wuxuu noqon karaa sadaqada oo hoos loo bixiyo wuxuu noqon karaa habeenkii oo la kaco oo la tukado wuxuu noqon karaa waxyaalo fara badan oo aan soo koobi karayn oo diinteena ku maaratay dhan meel kasta ka jirta idan maxaan oranay ikhwaani fillah camalku waa mutlaq waa camal waa la furay lama soo xidhin laakiin sharti baa lagu xidhay waa inuu saalix noqdo waa inuu wanaagsanaado saalixina waxa lagu xidhay laba sharti buu leeyahay in ilaahay dartii loo qabto iyo in nabiga lagu waafaqo sallallahu alayhi wasallam maca dalika wala riyal waxa in loogu yeeray acmaal muhaddada oo inaan qabanaa tobankan cisho dhexdooda iyo jiro in la qabtaa waxa kamida maalinta Carafa ay sagaal tahay qofka aan xaaji ahayn in Carafa joogin in uu soomo nabigu wuxuu yiri inni la ahtasibu sawmi soonkayga waxaan ilaahay dartii ula jeedaa inuu ilaahay igu dhaafo sanad hore iyo sanad dambe hadaad soontid maalinta Carafa sanadka soo socda iyo sanadkii ku dhaafay dambigoogii iyo laga dhaafaya marka waxa la rabaa soon baa soo arooray maalinta Carafuuna ku soo arooray ayaamaha kaleetana isniintaad ka soomi kartaa khamiistaad ka soomi kartaa ma yasoomu daawud baa soomi kartaa ayaam baa soomi ayaam baad faatiri ayaam baa soomi ayaam baad faatiri wahakada illa aad ka dhameynaysid sagaalka cisho ee ka horeysa maalinta tobanaad maxaa yeelay 10 iyo 11 iyo 12 iyo 13 soo ku inaga xaraaway ayaamaha waxa weeyaan nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam wa ayaama aklin wa ayaama wax la cuno wa shurbin wax la lacabo wa dhikrin ilaahina la xuso wa ciidin weey marka ayaamaha soonka waa la joojiyaa illa qof soonkiisu ma aha soon daawud waday oo ayaanta ciid uu joojiyo mooyaan barka arinta la wada waxa weeyaan qofka muslimkii waa inuu tahagarto soonka waa soo aroortay waxa kale soo aroortay in la badiyo takbiirta Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah Allahu akbar walillahi alhamd ibn Umar wuxuu sheegay radiyallahu anhu maalinta tobanaad ee xajka maalinta tobanaad ee dulhijja inuu intuu u baxa banaanka inuu takbiirta kor u qaaday fakana yukabbir ويكبر الناس معه marka bay dadkuna la qaadiyeen takbiirtan jamaaciga la isla qaado taaba u daliil ah ibn Umar wuxuu yiri mina uu soo baxayay takbiirtan qaadiyay marka bay saxaabada iyo dadkii muslimiinta ay maqlayeen iyo ila qaadiyay dadkoo dhan marka suuqa jooga magaalada jooga ayaa takbiirta qaadiyay marka waxaan idin sheegayaa walaalayaal arinta labaad ee soo aroortay waxa weeye in la badiyo alfaada dhikriga takbiirta tahliisha la ilaha illa allah تحميد إله الله مهنقه تصبيح إله وعبت لجوفه إن عم بدينه يدنا ويسوع أرارتي وحكرته أسوع أرارتي ورقده هي إن معليت الطبانات بيشان أي تهي طبان بيشد الحجة إن لقلوا معرة الضوحة وضحية دي وضحية دوا محي إن لقلوان إن لقلوا أرجي إن لقلا دبي إن لقلا محاكر هذا أور وحاصل ويسوع أرارتي dadka qaarkood waxay leeyahay ku qalaha dadka Yurub jooga North America jooga way qali karaan waxay tagi karaan dabaxada way qali karaan sunnaha bay ku nooleen karaan wadanadan reer galbeedka ee gaaladu u badan yihiin ma wad qali kartaa oo dhulkeeni waa u diri kartaa muslimka ka imatay Afrikadii bari waxa u diri kartaa Soomaaliya waxa u diri kartaa Djibouti waxa u diri kartaa Ethiopia dadka ka imatay waxa u diri kartaa meel kasta oo dadka muslimiintu ay joogaan ma wadanada ku dhibaataysan yihiin baa u diri kartaa وحلبك وقالي هي مسلمين سوريا ودري كرتا مسلمين يمن كو جونس ودري كرتا مeel kasta dadka muslimiintu maanta ay ku dhibaataysan baad lacagta intaad bixisid masaajida laga ururinayo geen karaysa marka oranaysa waxaan u diray lacagtaydaas oo xoolaha lagu qalayaa halka kuwa ku cuni doona adxiyadii baa sameysay marka maalintaas khayrka ugu badan ee la qabto waxa weeye in la qalo wan oo qofku qalo dhiig daadiyo oo dooxo ilaahayna wuxuu ku yiri subhana suuratul kawsar فصلي لربك وانحر صلاة تكعيدة مركا صلاة عيدة كسو بحديدنا حوله الضوحة وقورعة وقلع وعنا وما نتعسي عيدة وكفرحة إنا نولسين سنه نبي إبراهيم عليه السلام وعق إن الله يريا ما دام أنتها بلامس وقف كستي وقف كرايا إنه وانقلوا إنه اسكجوا جويا ما ننت السلاسل مركا بلامته كودة ذو الحجة
ilaa ay ka dhamaanayso 10 dulxija inuunan cidihiisa gurin inuu timihiisa xiirin inuu shantiisa taaban timo meel kale ku yeelan inuu waxba ku qaybatan wax walba uu iska daayo ilaa uu ka qalayo yani ilaa ay ciidu ka dhalanayso waxa soo dhan inuu daayo qofkaasi waayo waa qofka udxiyo sameeynaya qofka aan laakiin udxiyo sameeyeen isaga looguma yeelin marka xanaabiladu madhabka xambaligu waa waajib buu dhahdaa shaafiiciyaduna waxay tiraahdaa waa sunne waxa inoo sunnaa inaan jirkeena taaban oo wax timaa ka goyn cidiyaha aan gurin ilaa maalinta ciidu ay ka imanayso oo qowka laga qalayo marka taasina waa muhiim weey ayaanta tobanaad ikhwaani fillah dadka muslimiinta waxa dhamaan laga doonayaa inay laba arrimood ku sarakacaan waa marka ugu horeysay inaa muslim oo dhan saamaxid qof kasto qalbiga wuxuu haysay inaa saamaxid oo tilaad ilaahi dadkii waa musaamaxay marka aad saamaxdid kadibna inaad arinta labaad ku kacdid inaad isku diyaarisid ciidu maxay kaga baahan tahay diyaarisid walaalayaal ciidu waxay u baahan tahay ma ahan in laga fikiro darjiida xidhaa maxaa sameeyaa ina ilaahi loo toobad keeno in la garto maalinta ciidu inay tahay maalintu ilaahi soo dajiyay aayada quraanka ugu qiimi badan al-yawma akmaltu lakum diinakum diintiini waa in dhameeyay quruxda islaamku maalintu dhamaaday weey wa atmamtu alaykum ni'mati ni'madaydi oo dhan baa taam nigu noqotay wa raditu lakum al-islam diinan islaamkana raali baa inaga noqday wa maalintu ilaahi hadaan muslimiin nahay raali naga noqday weey maalintaas iyaan ciideyna waxaan u dabaaldegaynaa waxay dawladuhu u dabaaldegaan maalintii xuruubeen calanka qaateen maalintii guuleysteen maalintii waxa la sameeyay 14 juuye Canada 4 maarta juuye Mareykanka 27 juwan Djibouti maxaa ku soo dadka juuye Soomaaliya maxaa radaa waxaas oo dhan waxa loogu dabaaldegaa 26 juwan Somaliland dhulka dhan magacooda sheegayna waxa loogu dabaaldegaa waa ayaamaha qiimaha iyo ka xuruubay laakiin maalintii muslimiintu xuruubeen waa maalintu ilaahay inoo man sheegtay waa maalinta ciid weeye quraankii waa dhamaaday nicmadii ilaahay waa dhamaatay ni yahuudiya u yimiday wuxuu u yimiday ninka yahuudigii Umar wuxuu ku Umar quraankiina waxa ku jirta aayad haday tawraad ku jir lahayd ciid ba ka dhigan lahayd Umar oo yaabay wuxuu keenay waa maxay aayada sheeg aayada buu akhriyo ka al-yawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam diinan Umar wuxuu ku yiri inni la a'lam anwa garanaya mata nazalat wa ayna nazalat halkay ku soo degtayna waan garanaya goormay soo degtayna waan garanaya Umar wuxuu waxay soo degtay nazalat fi yawm jum'ah في يوم العاشر من ذي الحجة وحين قصدت والرسول في منى صلى الله عليه وسلم وحين صدت مال الجمعة مال الجمعة ومحي وعيد المسلمين أسبوعي وحين صدت مال انتي طبعا بش واحد وعيدي وين المسلمين وحين قصدت منى وماشي والنبي وجوه صلى الله عليه وسلم وديته كل ميويان إذا إخواني في الله أيانتا سوينا وحا حسوسا أنا كنت حسوسا وإنا العيد نوي عيد إنه محي كريتها مركها ونقولي سني معاك قوليسنay nafti shaytaanki adowgi ilaahay inaga weecini xaqa ya ka qoolaysanay maxaan dhahaynaa marka Allahu akbar ilaahay waa weyn marka dadka la farxayaan khamriga cabaan marka dadka la farxayaan sinimoga galaan marka dadka la farxayaan banaanada qeyliyaan annagu hagan tageena musallaha tageena ciid lagu tukanayo miskiidka tageena halka man ilaahay u sheegayna inaan farxsanahay waxaan ku dhahaynaa ilaahay Allahu akbar adaaweyn kabiira wali sii weyn ما هاد أردنا عدالة عيب أردنا وتكوفنتاي وبريا يصبحيبا سبحان الله بكرة وأصيلا مركا إخواني في الله أرنتا بأن لو يرى مانية عيدة قفك المصلحة عيدة تغير وإنه دريقة عيدة دريقة لك صلام بابو ردا كورسنتاي هذا الدوينيسي هذا المارتي قال لي سعودية هذا عينيسي دول دريقة كتك دريقة لك صلام ملائك بعد دريقة جوتك سود وينيسا مانيتاس وإلهي سبحانه وتعالى وصول دعي أكون قرما لوصول دعي مسلمين تبركينيا وحال لغا ربا او كليتو hadii aad ciidatan ay tahay ciidi arafo inaanad waxba cunin marka salaada ciidaysid adigoo sooman ciida arafo way asaasi adigoo sooman salaada ciidtag marka soo noqotid waxa wan qashade waxaad cunaysaa wixii aad qashab wax ka cunaysaa beerkiisa cunta hilibkiisa cunta waxaad kala dhaminaysaa hadii kaleetana عن بابور كاغا يلا خدادا يا عنجيرadaada yaa iska cunaysaa marka soo noqodka cunaysaa adoo soo bataysa af xiran marka soo noqotid iyad cuntada cunaysaa oo bismillah la farxaysaa indar fiican la xidhana waa muhiim in ciyaarka laga farxiyana waa muhiim ina ummadda muslimiinta oo dhan loo bishaarayna waa muhiim
waxaan niga lahay marka insha Allah ta'ala ayaan barakaysan iyo ciid barakaysan ilaahay mardan rasuulkan keeno anagoo soo wada hadlayna sanadka sanadkii hana gaarsiiyo wasalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh